السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسودو kanalka Qiso Production Official. Maalin ugu dambeeyay waxa baraha bulshada la isku wadaagay muuqaalo muujinaya guurka Ilhaan Cumar iyo Tim Maynard oo ah ninka ay guursatay Ilhaan Cumar. Waxa maalmo ka hor dalka Mareykanka ku aqal gashay xildhibaan Ilhaan Cumar oo ka tirsan aqalka sare ee Congress-ka ee Mareykanka lagana soo doorto Minnesota. Ilhaan ayaa barteeda Instagram-ka ku soo dhigtay sawir iyada iyo saygeeda cusub Tim Maynard iyadoo oo ku qortay waan guursaday waxaan lamaana ku ahayn siyaasadda haddana waxaan ku nahay nolosha waa barako alxamdulillah. Afayeen u hadlay Ilhaan Cumar oo lagu magacaabo Jeremy Stelvin ayaa BBC-da u xaqiijiyay in Tim Maynard uu qaatay diinta Islaamka. Waxaan ku xaqiijinayaa in ay isku guursadaan hab waafaqsan sharciga Islaamka. Sida waxa yiri afayeen u hadlay Ilhaan Cumar oo la hadlayay laanta BBC ee Soomaaliga afka Ingiriiska. Jeremy ayaa ka gaabsaday inuu BBC sidoo kale la wadaago haddii uu jiro magac uu la baxay sayga cusub ee Ilhaan Cumar iyo xilliga uu qaatay diinta Islaamka. Xiriirka haasawaha ee Ilhaan Cumar iyo Maynard ayaa soo shacbaxay sanadkii la soo dhaafay kadib markii xaaska ay wada joogeen ee Maynard oo lagu magacaabi jiray Big Maynard oo 55 jir ahayd ay dalbatay furni. Maynard ayaa haatan Ilhaan Cumar u qaabilsan dhanka ololaha doorashada. Hadhow waxaan idila wadaagi doonaa shakhsiyadda Maynard iyo halkii uu ku dhashay ku barbaaray iyo noloshiisa oo kooban. Mahadsanidin.